السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعد فتح أحمد جامعة يوتيوب كدا ونايسان وعد فتح التري ولا يلكسر هذا مقال كان عصب إن شاء الله مقال كان عصب إحنا وهذا دونا قصة عجيب أكيس يكون عضي كبر تاجرد وهو يدي أبيه إلهي مالسي رويال فاميلي كدلتي مقع له أي وحي جعلاتي ويل مسكين عيالك حافظة لكن إستجنا إلهي أخلاق إدب شرف يحشمت يونين دمر قيمة إليهن أيوها أظن لما يسمع كبيح ما كنا لها قصة عجيب ويا ولا المعان حلقة أبا إني فائدك وجرته قصة سيدنا تاني يكون بلاوتي قبدي يويلكي قبدي على كل حال وهي إسبرتي قبر برشيدة صوت حق الشوط برشيدة كور هايسو لكن قبل أنه حيرتي قر حلال وناكسن نول وناكسن شرف له كان أرك نولش نوع عسيرتي ويلكن سيدا أوكله لكن ويلكن مرة اسمه دهين قبل أن يذكر سندونتا لكن مرة والبحو إله قرئ باقر نولشي قبل ويلكي بلوين انتاسو استوى السعودين وهذا شيء كي سنايين كان أرك والإسبرتي دبعته دقنكي ويلكي إذا بتيسي أنت واحد كلا إدوني سمعان نكان نن أخيار أمية نن إذا بليمية نن مسؤول هذا قاضي كرمية أنت سئم بيدا وده أرديس ويلكاني على قدام بين ويلكي جور بالو صبر نكتب حلا صاحب أنا جور يعني كهرباء محاسمين من جور سكرت ديار مطاي والله وأقلن تا إن لو جور سدو نولش إن لو لقب سدو دايما أيات هاي هذا لما معام بدن أياك سير ويلكي كبدا قلبتي قبوجinaayo anyway wuxuu ku dhahay aniga bowlad aan kuga aroosayo shilin aan kuga aroosayo ma haysti maxaan sameeyaa saaxiibow aniga diyaaran ku ahay guurka waa iska duceysan yahay adiga qolka hal qol xitaa dad noo kriisid ani diyaaran kula ahay familigaas waa kaaga soo go'i karaa wuxuu dhahay aniga familigaaga waxaysan raali ka ahayn aniga ma sameyn karin hooyada aabaha haday raali ka yihiin in aan ku guursado diyaaran ku ahay markaas ay ku dhahday iga warsug aabaheeda iyo hooyadeeda sheekada way maqleen waa loo sheegay arintii gabadha hooyadeeda u sheegtay hooyadeena aabaheeda u sii sheegtay waxa la gabadhaday arintaas ay la soo ilaa maaday diyaar ma u tahay waay ugu gabadheeda aniga wuxuu dhahay gabar aqal badan waay gabar isku haleyn karo waay ninka ay dooratana ninka aqal badan leh waay kulli وإن أن كبرتا ويلكي الله كاني ويلكي الله إسبرتي أسبوع ويلكي عليك مالو بالمناي مر أنت صرنا محل في الرأي ده بعد ديسي أخلاق ديسي والله أضي يوحو هانين دين قبيل كي تاعي يا تاعي حتى ولي سلام دين أنت وحو فيرنا لا بشيء حاجة الدين تنو كفيري حاجة أخلاق دينو كفيري لا وضع ننكر رجعت ولا وضع اسكودر صدق رنتي ورد مسترين هاي مال صومان مال اسك إمادة يعني العقوة إمادة وعن ربي سبحانه وتعالى وكوقري بعد عنيسة أنت أكيد منيست وحوا عنا اللي هذه وذيكي وحو قبل أولى إمادة آبا نكان وكوق الماء ديار أنا هاي ولا وحول بديار أنا هاي لكن هل بلن شلنا أنا قاعد ليه هاي نكاسو روسكيسو كومدي باي odayga xumaan kama wado laakiin wuxuu rabaa wiilkan iyo gabadhan inay meel ka soo bixi karaan naciib uu qabo gabadhiisana maahan gabadhi way dareentay way bay dhada aab aniga sheekadan ninkii aan ku duraya wiilkii loo imaaday sheekada lagu diro wuxuu dhahay walaalay aniga wax meesti kulli dhalinyaradii isku xafada ahayn baan u tagayaa dhalinyaradii arintu u soo sheegtay wiil aad loo jeclaabo ahaa war ka saxaa la aragtaa guurka leh Soomaa anaga ku saarneen anyway aroos waxa loo dhigay ma sha Allah oo qatar hal qol loo kareey waa loo habeeyay waxa la saaxiibo faataxadu ku mar adigay naagtaada nabadii loo kala tagay arooskii gabadhii arooskeeda waa la dhigay farxad waaw hooyadii ayadu waxay ku saacideyn kartay ku saacideysay adiga arooskii gabadhii wiilkii way galeen adiga gurigaasi arooska intii macnaha qarash gashay oo dhan waxa keen dhalinyaradii okay وعيسى يكون سعودي
maanta wax hel beri wax la waayey maanta wax hel adiga ma ogtaa qofka haddana mid kale haddii aad guursatid ilaahay arsaaqada markaas ilaahay uu ku furfuraya gabadha maalin walba waxay ku duceysay ilaahu ninkeyga shaqo u sahal mar walba ay duceysan jirtay ilaahu ninkeyga ii barakay sidii bay uur ku qaaday gabadhii ninkay waxba haysanin runtii wiil bay dhashay wiilka subaxii markay dhalaysay gabadhaasi afka wax loo geliyaa la waayay subaxii runtii xaafadihii ayaa waxa la ima adiga gabadha dhalisay maqleen oo adiga rooti iyo waxbaa la keenay xitaa mataq iyo xanuun bay ka qaaday rootigii wixii adiga noloshii adiga waxay socoto sanad markii sidaas lagu nool yahay ilaahay wiilkii wuxuu u sahlay shaqo fiican oo ilaahay u sahlay lacag adiga qaadanayay shaqada wiilku wuxuu qaadanayay 40,000 oo lacag Kenya 40,000 runtii markuu 30,000 oo gacanta ka saari jiray wallahi gabadhii wiilkii markii wiilka shaqo u helay farxad nolosheeda farxad bay noqotay way isbedeleen oo ya waxay dhahday ilaa aan heer ka gaarin qolkan aan degnaanina markaas ku dhac qolkan naga guuraad lacag aan helnay may ay dhahday gabar xisaabtamaysa ahayd aad bay xisaabtamaysa runtii waxay ahayd gabar aqli badan waxay ogeyd maalin uu shaqadan wiilka in laga soo ceerin doono ayadoo sida ka fikirayso anyway 40,000 lacag Kenya bay ahayd 40,000 10,000 uu ka reebanaya 30,000 gabadhu ka saar jiray gacanta gabadha marka wiilkaana marka wuxuu dhahay gabadhan 30,000 marka ay saartaa yeelato waayo ayadoo taajirad ah ayaan guursaday anoo miskiin ah iyo guriga in la soo saxatay markuu ku sharfay runtii aad buu u jeclaaday gabadhii hal cunugna waa la haystaa adiga shaqadii wuxuu ay u waday 3 sano oo shaqada waday 3 sano markay u dhamaatay shaqada faarqabay lama dartay loo soo saaray wiilkii intuu shaqeyn jiray surwaalkii shaatigu maanta xirto bari muusan xirin jirin surwaal kale iyo shaati kale cusub ayuu xirin jiray wixii socoto wiilka shaqada waa laga soo ceeriyay shaqadii markii laga soo ceeriyay wuxuu isdhahay 30,000 gabadha gacanta ka saaraysa waxna kama hayso adigana shaqo ma haysid waxna ma haysid gabadhina lama dhihi karo shaqada waan ka soo tagay ama shaqada waa laga soo ceeriyay subaxii markuu wuxuu iska dhigayaa in shaqo aadayo mid kale xaaskaaga ma qiyaani kartid qof kale waad qiyaani kartaa adiga isbuuc markuu isma waalinayo dhahay shaqo aadayo markii dambe surwaalkii shaatigu shalay xirtay ee meesha loo soo dhigay markii meesha loo soo dhigay uu dhahay hebelay maxaa dhacay what's wrong aniga shaqayna aad waa ogtahay waxay dhahday maanta caadi ah iska wiilku isku naxay markuu xidhay qoftii wallahi bilaa saxaw maanta ku taagantay ku dhamaatay labis iska xirtay reeradood muusan ahayn uu iska tagay intuu san tagin albaabka si baxay kalarka la qabtay markaas lagu dhahay saaxiibow aniga ima qiyaani kartid xaaskaaga ay been ima sheegi kartid waxay ku dhahday aniga 30,000 aad gacanta iga saaraysay 30,000 guri kirihiisi iyo aniga biilkeygi wixii soo haro meel ayaan ku dhigay doqon ma ahaya lagu dhahay inaad bari shaqada ka soo tagaysid miyaanan ka war haynin in aan bari xanuunsan doontid in aniga aan xanuunsan doono in cunugeyna xanuunsan doono soo ma ogid anyway waxa loo soo saaray 2 boorso oo lacag ah wiilkii wallahi bilaa wuu yaabay wuu isku yaraaday farxadiisa farxada dhaaftay adduunka waxa ugu wanaagsan ninka markii ay murugo hayso ina markaas murugada markaas ay ka qaado wallahi murugada ay dhaafto markaas ugu farx badan yahay ninka ragga ah kuma iloobay gabadhii waxay noqotay gabadh ugu boqorsan bay noqotay ninkeedana waxay ka dhigatay ninka ugu qatarsan aan abisi noqotay dad macnaha dadkii waxay noqdeenba dad macnaha ayaga alaab keenayo oo supply noqonayo odaygii sheekadii markuu maqlay ay gabadh loo imaado waxa la aabo waagi hadii aniga aan qarash ku siin lahaa oo ninkan u dhihi lahaa lacagtan ha ku shaqeysto wallahi muusan shaqeysan lahayn baa Allah adigina hadaan ku dhihi lahaa maalkan qaado maanta ninkaaga lacagtu uu haysto heerku uu joogo
adigana maadan gaarsin lahayn oo aabaha xoolihiisa isku haleyn lahayd mar walba aab wax keen u baday dhiileed aniga xumaan aan ku qabayna maysan ahayn laakiin ninka ku guursaday kartidiisa iyo adiga inaad adduunkan la'aantii noolaan kartid unbaa macnaha aan rabay waana i tustay waana ku duceeyay aaba macaan noolow farxad ku sii noolow muhiimadda qisadana waxay tahay gabariyay markay adiga lagu soo guursado ninkaaga uu ku soo guursado ogtii ninkaaga soo waxba haysanin runtii ninkaaga boqor waad ka dhigan kartaa xay waad ka dhigan kartaa nimanka ugu qatarsan waad ka dhigan kartaa ku gaartay rabbi ka cabsi bay ahayd ninkeeda ilaah ka soka ninkeedana way tala saaratay ilaahina tala saaratay ilaahay bay tala saaratay ninkeedana garabay siisay intii yaraa uu ilaahay u arsaaqiyay meel dhigatay heerkaasay maanta joogtaa والله مقعي هدان شيء حتى أنا قرتنا على غيابه لكن مقع أنا شيء أنا مربي لبضاس قف إلهي سداس وبركي قف البابا هدود ذا لو قرايا لكن هدان حمار هذا ليست ولي جاga جوج باتاي waxaan in rajeynayaa qeyr video kale soo socda ayaan waxaa badan uga hadli doonaa aan ka codsanayaa inaad videogan ii share gareysid adigu cusub tahay subscribe ku qabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.